Dhismaha Wadada weyn ee isku xidha magaalooyinka Burco iyo Ceerigabo ayaa ku dhow dhamaad. مشروع dhismaha wadada isku xidhaysa gobolada Togdheer iyo Sanaag oo mashruuca ugu ballaadhan ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland xooga saaray dhameystirkeeda ayaa bilooyinkii ugu dambeeyay waxa shaqaalaha wadada habeen iyo maalinba ay heegan ugu jireen sidii ay u dhameystiri lahaayeen iyadoo maanta shaqaalihii dhismaha wadada ka soo bilaabay in afmadoobe iyo shaqaalihiin ka soo bilaabay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigabo ay maanta iskugu yimaadeen toga daadheere isla markaana wadadu ay tahay gebo injineerka guud ee gacanta ku haya dhismaha wadada Ceerigabo iyo Burco injineer محمد عمر يقار كميدا انجنيرada saydarka ayaa ka xog waramay hab sami socodka shaqada ay qaranka u hayaan waqtigu adeeg shaqaaluhu waxa u dhabaraadeegeen inay wadadaasi si u dhameystiri lahaayeen riyada u rumeyn lahaayeen riyadaas oo ah tii in badan madaxweynihii hore uu ku hamiyay si u dhameystiri lahaa uu ka daba qaaday madaxweynaha qaranka Muusabixi oo ay daandihinayaan wasiirka Cabdullaahi Abubakar wasiirkeega iyo maareeyaha waxaan leenahay kulli waxa weeyaan cadaas dililada gacan baan ku qarinayaa iftiinkeega cidna ku qarin mayso waxa weeyaan waxaad arkaysaan wadadiina inaga soo afkooda carakadeedii imikana waxa isku xirmay carakawadii ka timid Burco iyo tii ka timiday wadada qaybtii ka timiday Ceerigabo waana halkay iskaga xirantay wadadiina halkaas ayay carakawadeedii naga soo afkooday waana alxamdulillah gaar ahaan waxaan aad u sii salaamayaa shaqaalaha mashruuca ee ku dadaalay inay isku xidhanto wadadii Ceerigabo Burco oo muddo badan ma ka socotay maanta waa gabagabo wada aragtaan waxaan joognaa waa dooxii daadheere ayay maantana aanu taaganahay leeyarkii labaad ayaa halka iyaduna maanta iskaga xidhmay aad iyo aadna waxaan u hambalyeelayaa shaqaale weynaha hariya habeenba halkan aad iyo aadka uga shaqeynaya wasiirka Cabdullaahi Abubakar oo isaguna markasta heegan ugu taagan sidii ay wadadaasu ay u xidhmi lahayd maanta waa maalin taariikhi ah halkan aynu joognaa waa dooxii daadheere waxa weeye waa isku xidhkii labadii qaybood ee midna ay ka soo socotay xagga Ceerigabo midna ay xagga Burco ka soo socotay إن شاء الله نوا جبجبه وتجبجبه ده إنه شغلنا ما أنت غارهن يكلي وضد Ceerigabo وين سوق قارن وضدنا كله وكون سكحري دو ما تنتين وحن لا ضد كنا ده وعركتان وضد ده وحنا كسر صدد كوا إسكت تاجنانين مع قبل كسرار إلا إسكت تاجنانين وحكون صدد ده ضد بحالكن أيا ده شرو أشغالهن ده وأشغالها عركتان ضد كوا حبا على ترى marka anagu qaybta kormeerkaanay haduu ilaahay idmo shaqadana kolba sidii ay u socoto daily report iyo weekly report iyo monthly report waan kula socodsiinaa maamulkayga qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada Gardag ee nasiibka u yeeshay inay dhex marto wadadan ayaa iyaguna u mahad celiyay shaqaalaha hay'adda wadooyinka isla markaana sheegay tan iyo markii loo soo magacaabay maareeyaha mashruuca injineer Maxamed Cabdi Buraare Qorsheel inuu wadada galiyay dardar xoog leh isla markaana ay shaqaaluhu wadada habeen iyo maalinba ay heegan u haayeen sidii ay u dhameystir lahaayeen dhismaha wadada Ceerigabo iyo Burco mahad ilaahay ba iskale marka labaad waxaan u mahad celinaynaa ninka ah maareeyaha wadada oo si fiican oo dardar lagu shaqeeyay Buraale waxa weeyaan in la dhul kugu dhaadhacay lana dhalashu kugu dhagarbiyay waa nin dardar lana u shaqeynaya waxaanu leenahay aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa xawaaraha aad ku shaqeynaysaa fiican waa mid Soomaaliland oo dhan waxtar u ah wadadii xumayda gaadiidkeenu ku dhici jiray Ceerigabo habeenaanu si dhici jiray saacadaanu si soconaa sidaas waxaan leeyahay ragga kale shaqeynaya wadooyinka inay saa uga eegtaan oo Buraale u shaqeynayo Burco ila Ceerigabo gaariga Ceerigabo bariga hor markuu ka soo baxo Burco ka soo baxo laba habeen bijidka ku jiri jiray haddana markuu ugu bato ilaa 6 saacadood meelaha ayuu ku jiraya marka waxa weeye horta saasay wadada aan isku qabad lahayn oo kordhinteeda iyo socodkeedu intaba waxay ku kala garanaysaa sidii baabuurta bariga hore u mari jirtay ilaa ugu baxaadagay wadadii oo sidii maareeyahan loo keenay si dardar leh xoog loo shaqeynayso sidii hore ka cadcad oo ama kadhadeedii ha noqoto ama laamigeeda ha noqoto si dardar loo xoog loo shaqeynayso isbedelkeeda aad iyo aad waa la arkaa dad qof kasto mara u arkaa isbedelka ku yimi iyo sida uu socoto iyo sida uu taalo qof kasta uu arkaa aad iyo aad baan ugu mahad celinay